daawadayaal Yunis culunta oo bartay jaamacadda ku jira waxa uu dheer waa nin saxafi ah oo isku minad baan dhinaca ka nahay waxa uu ka hawlgalaa telefishinka caalamiga ah Star TV qaybtiisa magaalada Hargeysa Yunis dad fara badan baa iyaguna laga yaabay inay isweydiiyaan Yunis oo aan hore u arag qoftay aragana afaka isla markaana saxafiya amba wax baranaya marka barnaamij diyaarnaysa amba wargeliso qaab noocay bay kugu suurta gashay inta badan wallahi barnaamijyada marka laga imaado warka oo kale qaabkan u soo galaa waa qaab inta badan saxafiyiinteena ay u soo galaan oo marka warka la soo diyaariyo qof kamida xubnaha warka soo diyaariyay ama warqada loo soo dhiibo ayaa mar dul mara kadibna warka waan xifdiyaa laakiin telefishinka Star oo kale markaan ka hawlgeli jiray barnaamijyo badan soo saari jiray oo kamid ah barnaamijka Gogoska iyo barnaamijka la oran jiray Tismaad Toddobaadka Taxanaha Caalamka oo fikirkiisa iska lahaa balse Star waxay ugu dambeysay bishii koowaad 9keedii oo aan ka tagay shaqadii oo aan joojiyay isfahan darana dhaxmartaan iyo maamulka marka laga imaado wax kale oo aan jirin marka qaabkan u diyaariyaa inta badan barnaamijyada soo saari jiray isku dabaridi jiray soona geli jiray maca cadiyo laba codod dheeraad iyo wixii kale lagu darayo warkana qaabkaas aan soo geli jiray oo barnaamijyada wallahi barnaamijyada wax dhibay kuma qaadan jiray marka laga imaado kuwan diyaarinayay marka madax barnaamijyada ka ahaa TV-ga oo barnaamijyada qaar ay habeenada badan ugu qaadatay soo jeed xataa aan soo jeed ayna la gashay laakiin barnaamijyada aan iska u diyaarinay dhiba ama wax waqtiyo badan iga ma qaadan jirin ma isku aragtay inaad saxafi noqon karto ma aqoon saxafinimo soo baratay mise dadka qaar baa kugu dhiirigeliyay inaad saxafi noqoto runaantii la yaraanteedii waan taageeri jiray saxaafadda waan isku dayi jiray laakiin saxaafadda waan bartay sababtan u bartay ma yahay inaan noqdo qof saxafi ama barasha ahaan shahaad ahaan ku helo laakiin waxaan u bartay si aan ugu dabaqo saxaafadda xeerarka ay leedahay iyo nidaamka loo maro in aad hawl saxafi qaban karto laakiin yaraanteedii hibi igu jirtay bay ahayd markii dambana waxaan isku dayay inaan galo sanadii 2014 dhamaadkiisii ilaa 15 kadibna waxaan ka qalin jibiyay kulliyadda Sidham College oo noo dhigi jiray macallin Faysal Maxamed Cabdi Farfarle iyo xubno kale oo kamid yahay Nagay Ali Khaliif iyo Macallin Xamse intooda badanna saxaafaddu marka practical iyo theory labadaba waan ku qaadan jirnay wixii inta ka dambeeyay 2016 ilaa 17 horaantiisii shaqadaas baan ahaa balse markii 16 dhamaadkiisii ayaan joojiyay inaan wax shaqo ardaydayo oo aan ku talagalay inaan kordhiyo aqoontayda jaamacadeed aan jaamacadna ku biiray kadibna wixii inta ka dambeeyay 2017 bishii 2014 waan si toos uga shaqo galay telefishinka Star oo aan ka shaqeynay muddo ku dhow sanad waxna ka tagay bishii koowaad 9keedii 2018 maalinimo salaasa marka waxbarashada saxaafaddu heerkaas soo martay laakiin ugu horeyntii waxay hibi ugu jirtaa oo aan doonay inaan marun ka mid dhaliyo barashada aan bartay waxay inaan ku dabaqo xeerarka iyo nidaamka loo maro shuruucda saxaafadda marka Yunis oo ma jiraan saxafiyiin Soomaaliya amba kuwa caalami oo ku dayato amba isleedahay halkooda gaadh wallahi kulay way jiraan waxana dhanka Soomaalida hormuud waa Allah naxariistay Axmed Xasan Cawke iyo sidoo kale xubno kale way jiraan dhanka marka la eego saxafiyiinta caalamiga ama internationalka ana badanaa telefishinada aad u xiiseeyo ama aan daawado waxa kamid ah Al Jazeera oo kale oo aan saxafiyiin badan oo aan taageeray ku jiraan oo saxafi nimanka Al Jazeera ugu weyn oo la yiraahdo Ismaan iyo Axmed Mansuur nin la yiraahdo oo dhawaan 2016 dhamaadkiisii lagu xiray dalka Masar iyo saxafiyiin kale oo Al Jazeera qaybta English ka shaqeeyo nin Mahdi Xasan la yiraahdo kamid yahay oo Pakistaniya niman badan way jiraan marka aad u kuleyto ku dayashadeedu laakiin ma aha inaan qaabkooda u dhaqmo balse waa inaan ka korsado khibrad aan ku dabaqo noloshay hortaala ee saxafinimo iyo qaabka aan u waajahayo waxyaalaha aan diyaarinayo ama waraysi ha noqoto ama war ha noqoto ama wixii kale la iga baahan yahay marka saxaafadda aynu ku jirno ayaan uga daydaa laakiin ugu ma daydo qaabkii u hadli jireen ama qaabkay erayada isticmaali jireen iyo wax la mid ah